kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkani waa channelka dabagalka wararka waa 26 bishii shanaad 2019 wararkan idin hayna kuwooda ugu waaweyn waxa kamid ah Ethiopia oo Soomaaliya ka tirtirtay qariiradeeda Somaliland oo dalu aqoonsatay iyo dhulkii Soomaaliya oo dalkeeda ku darsatay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo magaalada Kismaayo kaga dhawaaqay go'aan ka dhana dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo sida beelaha Soomaaliyeed ay u kala qaybsadeen safiirada Soomaaliya u fadhiya dalalka caalamka beelaha hawiye iyo daaroodya xubno badan iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo lagu eedeeyay inuu beeshiisa xubno badan siiyay faahfaahin ka soo baxaya dagaal culus oo ka dhacay Sanaag iyo Somaliland oo guulo ka sheegatay xukuumadda Soomaaliya oo qaadatay go'aan caragelinaya Kenya kadib markii wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay beesha caalamka ku wargelisay in aysan Kenya kaga qayb galin shirarka looga yeero gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug oo weerar afka ku qaaday Puntland maxaa ka jira in madaxweynaha Kenya uu ku wajahan yahay magaalada Hargeysa madaxweynaha Puntland oo maamul iyo taliye cusub u soo magacaabay gobolka Mudug iyo Galmudug oo si kulul kaga hortimid go'aankii dawladda federaalka ee habraaca doorashooyinka maamul goboleedyada intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka channelka dabagalka wararka haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir channelka adigoo subscribe saaraya kana mid noqonaya saaxiibada 24 saac joogto u hela wararka halkan aan ku baahanay sidoo kale taaba gambaleelka si aad u rukumato wararka aan joogtada u soo gelino kuma hadsanid in aad nagu soo biirtay haatanna warkiyo fidsanna sawir shaki badan dhaliyay oo lagu arkay bogga wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia kaas ay qariiradeeda kaga tirtirtay Soomaaliya sawir muddo kooban ka muuqday maqaal lagu qoray bogga rasmiga ee wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ayaa muujiyay in qariiradeeda Afrika oo tilmaamaysa dhulka Soomaaliya lagu daray dalka Ethiopia maqaalku waxa uu ka hadlayaa xiriirka Ethiopia iyo Masar gaar ahaan arinta biyaha webiga Niil kamana hadlayo wax Soomaaliya ku saabsan waxa isweydiintu mudan tahay muxuu ka micno yahay sawirkan aanay ka muuqan Soomaaliya ee haddana lagu calaamadeeyay Ethiopia website-ka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ayaa la soo dhigay map ama qariirad la yaab leh oo si cad ugu xadgudubtay madax banaanida iyo qaranimada Soomaaliya qariiradan oo ah tan qaaradda Afrika ayaa gabi ahaanba laga tirtiray Soomaaliya oo sida ka muuqata laga dhigay inay tahay dhul ka mid ah Ethiopia waxa sidoo kale yaab lahayd in Somaliland laga reebay dhulka Soomaaliyeed ee Ethiopia ay ku darsatay sida ka muuqata qariirada isla markaana Somaliland laga dhigay dal madax bannaan oo ka tirsan Afrika lama yaqaan sababta Ethiopia ay sidan u sameysay iyo ujeedada laga leeyahay balse waxa cad in hamiga Ethiopia ay ahayn mar ay baabi'iso Soomaaliya kuna darsato dhulkeeda u banaanka yimid han noqoto ku talagal ama sirka fakatay Ethiopia arrintan ayaa imaanaysa iyadoo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu saaxiib dhow leeyahay dawladda Ethiopia gaar ahaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed isagoo rumaysan in isbahaysi uu la sameysto ay muhiim u tahay dawladnimada Soomaaliya baraha bulshada Soomaalida ayaa durba sawirkan qabsaday hadal ahayn badanna ka dhaxdhaliyay iyadoo dadku ay fikrado kala duwan ka bixinayaan danka kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa magaalada Kismaayo kaga dhawaaqay go'aan ka dhana dawladda federaalka qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee laga soo doortay deegaanada maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo kaga dhawaaqay in ay ka hortagayaan dawladda dhexe ee Soomaaliya oo sheegeen in ay doonayso in ay u gasho maamulka Puntland sidii doorashadii maamulka Koonfur Galbeed senatarada kale ah Iftiin Xasan Baasto Axmed Xaashi Ismaaciil Fartaag ayaa sheegay in dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah musharaxiinta ay ka been sheegeen amniga maamulka Jubbaland waxay sheegeen in haddii dawladda dhexe isku daydo inay farageliso doorashada Jubbaland in ay ka hortagi doonaan isla markaana maamulka Jubbaland ay ka dhici doonto doorasho xalaal ah senatarada kale ah Fartaag iyo Iftiin Xasan Baasto ayaa sheegay in ay la socdaan qorshe ay wado dawladda dhexe oo xiisad amni darri looga abuurayo deegaanada maamulka Jubbaland waa sidii hadalku dhigeen isla markaana ay qaadan doonaan doorkooda si looga hortago arrintaasi
maadaama ay la socdaan dhibaatada dowladda Soomaaliya ay ka geysatay magaalada Baydhabo waa sida ay sheegeen Jubbaland sidii koonfur galbeed loo fargashaday in loo fargashado mana yeeli doono mana dhacay arrintaas maxaa yeelay annagii waa dirsateen oo dowladda wakiilka kaga ah annagii waa u doodayno annaga idin sheegayna marka golaha sanadka iyo golaha shacabka iyo xukuumadda federaalka ah war annaga Kismaayo joogna Kismaayo nabad weeye war annaga Kismaayo joogna Kismaayo nabad weeye Kismaayo dhibaato kama jirto haddii aad rabtaan imaado oo nabadda wax nagala saxa intaas waa fariintii xagga naga federaalka aan isu direynay xagga beesha caalamka warqad habeen meel mugdi lagu qoray iyo dad mugdi ay qoreen ha dhageysanina waxaad dhageysataan salaadiinta dhageysta waxaad dhageysataan haweenka dhageysta waxaad dhageysataan dhalinyarada dhageysta waxaad dhageysataan golaha baarlamaanka dhageysta Jubbaland la sharciga leedahay sharci dejin ay joogo wareysta waxaad wareysataan golaha xukuumadda ay joogto wareysta madaxweynaha joogo wareysta been looga sheegi karo beesha caalamka safiirkii maxtaqanay oo ayuuda ya halda wuxuu halkan ka lahaa kuwa beenaalayaal wax loo sheegaya himself liars ayaa wax loo sheegaya been oo jirin subax walba ribood baa eegad ay bixisaa saraakiisha halkan ka joogtaan subax walba xogta Jubbaland ku baraday waa la ogtahay waa la ogyahay kuwa dhahay maxaan ku raahdaa ciidamada halkan ma joogaayo ma maamuli karaan ciidamadii nabadgelyo dhaliyay seebayna u maamuli karaan doorasho hal maalina ciidamadii nabadgelyadan abuuray seebayna u maamuli kareen way maamuli karaan ka badanna way qaban karaan ka badanna waa lagu aamini karaa ciidamada reer Jubbaland waa la idinku soo duulay nabadiina yaa la diidan yahay wadajirkiina yaa la diidan yahay wanaagiina yaa la diidan yahay waxa fiican oo aad sameeysateen baa la diidan yahay waxaan idinkula dardaarmayaa inaad isku tashataan isku duubnaataan midnimadiina adkaysataan dowladnimadiina adkaysataan intaas idinkula dardaarmaya reer Jubbaland sida bilaha waxaan ka jawaabayaa midda waxaad noo dirsateen inaan idinku mathalno dowladda federaalku duulaan baa idinku soo tahay dowlad goboleedyadii bay ku soo duushay inay idin burburisay rabtaa tubaha duminta tuba la dhahay samaysatay u fiirsada tubaha duminta tubin la dhahay samaysatay tubay u kala saartay oo lagu duminayo dowlad goboleedyada u fiirso ra'iisul wasaaraha markuu hadlayo u fiirso madaxweynaha federaalka markuu hadlayo wax kale kama hadlayo markanna waxaan idiin soo gudbinaynaa sida beelaha Soomaaliyeed ay u kala qaybsadaan safiirada Soomaaliya u fadhiya dalalka caalamka dhammaan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa ansixiyay dalacsiinta ilaa 5 xubnood oo ka mid noqon doona safiirada Soomaaliya u fadhiya dalalka saaxiibka la ah iyo kuwa aynu walaalaha nahay safiiradan oo wali aan howlgalin lana magacaabin safaaradaha ay ka howlgali lahaayeen ayaa waxaan halkan idinkugu soo gudbinaynaa qabiilada safiirada iyo diblomaasiyiinta kale ee safaaradaha Soomaalida ay ku leeyihiin dalalka caalamka qaarkood dad badan ayaa ku eedeynaya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad in uu ku tuntay awood qaybsiga beelaha Soomaaliyeed isagoo bishii la soo dhaafay magacaabay in ka badan 45 qof oo dadkaasi ay u badnaayeen beeshiisa sida lagu eedeeyay inkastoo warkan aan la hubin waxaa xusid mudan in safaaradaha awoodda leh uguna muhiimsan ay ku badan yihiin laba beelood oo kala ah daarood iyo hawiye sida ku cad shaxda wasaaradda arrimaha dibadda haddaba sidan ayay beelaha u kala heleen safiirada iyo diblomaasiyiinta kala duwan beesha daarood waxay leedahay 11 safiir 2 ergo iyo 45 diblomaasi oo u badan la taliyaal beesha hawiye waxay leedahay 10 safiir 1 ergo iyo 53 diblomaasi oo haysta darajooyin kala duwan beesha Digli iyo Mirifle waxay leedahay 4 safiir 1 ergo iyo 19 diblomaasi oo u badan xog hayaal beesha Dir waxay leedahay 4 safiir 1 ergo sidoo kale 24 diblomaasi beesha Shanaad 5 safiir iyo 15 diblomaasi faahfaahinno kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo ka dhacay Sanaag faahfaahinno dheeraad ayaa laga helayaa dagaal qasaare geystay oo ciidamo ka tirsan kuwa Soomaaliland iyo maleeshiyaad hubeysan ku dhaxmaray deegaanka Dararweyne ee hoos yimaada degmada Ceel Afweyn ee gobolka Sanaag dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada Soomaaliland oo wada howlgal ay ku baadgoobayaan nin ruux shacab ah ku dilay deegaanka Ceel Afweyn ay dagaal kala hor yimaadeen maleeshiyaad ku hayb ah ninka wax dilay waxaana dagaalka ku geeriyooday hal askari oo ka tirsan ciidamada Soomaaliland
dad ku sugan deegaanka Dararweyne ee lagu dagaalamay ayaa waxay noo sheegeen in dagaalka kadib ciidamada Soomaaliland ay sii wateen howlgalkooda halka maleeshiyaadkii hubaysnaa ay goobta isaga carareen wararkan goordhow ka helayno deegaanka Dararweyne ee lagu dagaalamay ayaa waxay sheegayaan in ciidamada militariga Soomaaliland ay halkaas ku sugan yihiin isla markaana wali howlgal ay ka wadaan hase yeeshee aysan ku guuleysan inay gacanta ku dhigaan ninka ay baadigoobayeen ee dilka geystay dagaalka maleeshiyaadka hubaysan ee ciidamada Soomaaliland ku dhaxmaray deegaan ka tirsan gobolka Sool ayaa ku soo aadaya xilli gobolkaasi ay wali ka taagan tahay xiisad u dhaxaysa maamulada Puntland iyo Soomaaliland oo dhawaan dagaalamay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa ku wargelisay hay'adaha caalamiga ah in Nairobi laga raro shirarka iyo seminaarada lagu qaban jiray wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa ku wargelisay hay'adaha qaramada midoobay kuwa deeq bixiyaasha ee iskaashiga caalamiga ah in aanay ka qayb gali doonin dhammaan shirarka seminaarada iyo tababarada ka dhacaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaana ugu baaqday in shirarkaasi seminaaradaas lagu qabto dalka gudihiisa ama loo bedelo wadamo kale si wakiilada wasaaradda ugu fududaato dhanka safarka shirkii golaha wasiirada ayaa laga soo saaray go'aan ah in wasaaradaha xukuumadda inay ku wargeliyaan hay'adaha ay bahwadaagta iyo wada shaqaynta leeyihiin in shirarka lagu qaban jiray Nairobi laga raro isla markaana loo wareejiyo magaalooyinka sida Kigali, Kampala ama Addis Ababa dowladda Kenya ayaa dhawaan fiisaha dalku galka u diiday wasiirada iyo xildhibaano ka qayb gali lahaa shirka dhicila magaalada Nairobi waxaana talaabada xildhibaanada iyo wasiirada loogu diiday fiisaha dalku galka oo sababay in dowladda Soomaaliya ay qaadato go'aan ah in wixii hadda ka dambeeya aanay ka qayb gali doonin shirarka ka dhacaya Nairobi dhanka kale maxaa ka jira in madaxweynaha Kenya uu ku wajahan yahay magaalada Hargeysa Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadashay in madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu booqasho ku imaanayo caasimada Soomaaliland ee Hargeysa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Faratoon ayaa sheegay in wali aan si rasmi ah loo qorsheyn socdaalka Uhuru Kenyatta uu ku imaanayo Soomaaliland balse ay rajeynayaan in mar uu tago wasiir Faratoon ayaa sheegay in Soomaaliland ay ku rajo weyn tahay in mar uu yimaado Uhuru Kenyatta balse hadda aysan jirin wax socdaal oo la qorsheeyay horta inaga iyo Kenya xiriir fiican baa hadda inoo dhaxeeya waliba xiriirka inoo dhaxeeya muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu ahaa mid sii kordhayay oo xiriirkii hore inooga dhaxeeya ka sii fiicnaanaya waxaan ku rajo weynahay in xiriir dhinacyo badan leh aanu yeelano aanu iska kaashano waxyaabo badan ayuu yiri wasiirka waxa uu intaa ku daray in madaxweynaha Kenya uu imaanayo Soomaaliland sida Muuse Biixiba uu socdaal ugu tagi karo Kenya iyo wadamada kale waxaanu ku rajo weynahay in mar dalkeena uu yimaado madaxweynaha Kenya iyo madaxda kale ee caalamkuba laakiin socdaal rasmi ah oo hadda la qorsheeyay ma jiro ayuu wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland maalmihii ugu dambeeyay waxa baraha bulshada aad looga hadalhayay qoraal bartiisa Twitterka uu ku baahiyay Rashid Cabdi oo ah qabiir degan Kenya oo falanqeeya siyaasadda gobolka iyo guud ahaan qaaradda Afrika Rashid ayaa qoraalkaas ku sheegay in madaxweyne Muuse Biixi uu booqan doono Kenya halka madaxweyne Uhuru Kenyatta uu isna booqan doono Soomaaliland sanadkan gudihiisa dhanka kale gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug qaybta cadaadada fadhigeedu uu yahay Cali Gacal Casar ayaa eedeeyay maamulka Puntland waxaana uu ku eedeeyay in faragelin toos ah ay ku hayso arrimaha maamulkaasi Galmudug ayaa u kala qaybsan laba dhinac oo qayb fadhigeedu yahay magaalada Cadaado halka qaybta kalena fadhigeedu uu yahay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud Cali Gacal Casar ayaa sheegay in Puntland ay faragelin toos ah ku hayso arrimaha maamulka Galmudug waxaana uu kaga digay in si degdeg ah faraha ay uga baxaan arrimahaasi hadalkiisa waxa uu intaas ku daray in qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka ay wadaan faragelin ay ku hayaan siyaasadda arrimaha gudaha ee Galmudug waxaana uu ka dalbaday in ay joojiyaan waxa uu sidoo kale sheegay in kulan ay yeesheen xildhibaanada Galmudug iyo gudoonadooda ay soo dhaweynayaan habraaca doorashada dowlad goboleedyada ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya baxay xildhibaanadii dowlad goboleedka Galmudug oo shir u fadhiistay maanta oo taariikhdaas waxayna soo saareen war-saxaafadeedkan waxaana uu qoran yahay sida tan waxaa caawa kulan afur ah iyo wada tashi ah isugu yimid xildhibaanada iyo guddoonka baarlamaanka Galmudug si la isaga xal wareysto xaaladda maamulka Galmudug iyo sidii loogu diyaar garoobi lahaa doorashada maamulka Galmudug oo waqtigeedii la joogo xildhibaanada waxa ay ka midaysan yihiin oo isku mowqif ay ka noqdeen in doorashada maamulku ay dhacdo waqtigii loo asteeyay oo ay ku heshiiyeen ummadda wada dhisatay Galmudug taasoo ku dhulmaysay in doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug la qabto 4 bisha July 2019 ka horna ay tahay in la soo doorto xubnaha golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug
sidoo kale waxay xildhibaanadu ku heshiiyeen oy soo saareen xildhibaanadu waxay kulankoodii ku soo hadal qaadeen in ay muhiim tahay in loo turo shacabka ay wakiilada ka yihiin oo runtii ay haysato xaalado kala duwan oo nololeed si taasi u dhacdana ay muhiim tahay in mas-uul kasta oo ka tirsan galmudug ay waajib ku tahay in uu ilaaliyo dastuurka ay ku wada heshiiyeen reer galmudug waxa ay sidoo kale xildhibaanadu carabka ku adkeeyeen in maamulka Puntland iyo qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka ay faragelin ku hayaan siyaasadda gudaha ee maamulka galmudug isla markaana ay ka shaqeynayaan ficilo si kala fogeynaya saamileyda maamulka galmudug sidaa darteed waxay xildhibaanadu soo jeediyeen in ciddii aan ka shaqaynaynin isu soo dhawaynta reer galmudug aysan ka shaqaynin in ay si kala fogeyso galmudug xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug waxa ay taageersan yihiin go'aankii caawa ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya oo lagu muujiyay in ay wasaaradda bilowday diyaar garowgii doorashooyinka maamul goboleedyada waxaana ku bogaadinaynaa ayay yiraahdeen xildhibaanadu in la soo magacaabo gudiyadii farsamada hawshii si howlaha dowlad goboleedyada doorashada u jahoobay loo fududeeyo ay u fududeeyaan howlihii doorashada sidaa darteed waxaan soo dhaweynaynaa mar kale iyo mar labaad war-saxaafadeedkii iyo go'aankii ka soo baxay dowladda federaalka oo hore ay ugu dhawaaqeen madaxweynaha dowladda federaalka iyo wasiirka arrimaha gudaha caawana ay ka soo geesta kalena madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa isbedel ku sameeyay hoggaanka maamulka mudug ee Puntland iyo sidoo kale taliska qaybta booliska ee gobolka mudug wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Puntland ayaa lagu magacaabay maamul cusub oo uu yeelanayo gobolka mudug ee Puntland Axmed Muuse Nuur ayaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka mudug waxa Xasan Cabdullaahi Warsame Wardheere loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug Maxamed Xasan Xuseen Waloore waxa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka mudug madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale taliyaha booliska qaybta mudug ee Puntland u magacaabay gaashaanle sare Jaamac Maxamed Axmed isbedelkan ballaaran ee madaxweynaha Puntland uu ku sameeyay xubnaha maamulka gobolka mudug iyo booliskaba waxa uu ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii dambe uu ku sugnaa magaalada Gaalkacyo oo kulamo kala duwan uu la qaadanayay bulshada gobolka mudug dhanka kale galmudug ayaa si kulul kaga hortimid go'aankii dowladda federaalka ee habraaca doorashooyinka maamul goboleedyada wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ayaa xalay soo saartay habraaca guud ee doorashooyinka dowlad goboleedyada ha yeeshee go'aankaas wasaaradda waxaa ka soo horjeestay maamulka galmudug wasiirka arrimaha gudaha galmudug Burhaan Maxamed Samatar ayaa sheegay in aan lagala tashan warqadda ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ee ku saabsan doorashooyinka isla markaana tixgelin la siin waayay waxa uu soo hadal qaaday hadalkii xalay ka soo baxay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Cali Gacal Casare ahaa in doorashada madaxweynaha galmudug ay dhici doonto 4 bisha Juulaay ee sanadkan waxaan uu sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ay meesha ka saartay awoodii doorashooyinka ay ku lahaayeen dowlad goboleedyada isagoo la hadlay idaacadda BBC-da laanteeda afka Soomaaliga ayuu sheegay in xilliga doorashada galmudug ay ka dhacayso ay ku qoran tahay dastuurka galmudug iyo heshiiskii galmudug iyo ahlu sunna ee dalka Djibouti waa maamulkii ugu horeeyay ee ka soo horjeesta habraaca doorashooyinka dowlad goboleedyada oo ay xalay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya guud ahaan war wixii dal iyo daafaha caalamka naga soo gaaray oo aad ka daawanayseen channelka dabagalka wararka waa nageynta haddii aad nagu cusub tahay ku soo bir channelka adigoo subscribe saaraya